السلام عليكم kusoo dhawaada mabda'a saddexaad videoga ugu horeeyo sagxad iyo saqaf ama support and resistance. Marka saa hore kugu sheegay mabda'an waa mabda aad iyo aad loo yaqaano, waa mabda'a ugu caansan ee isdhihi kara muxuu ahaa markay noqoto falanqaynta farsamada ama technical analysis. Waa support and resistance, waa muhiim buu yahay. Marka insha Allah notes qaado ku ceshcesho videoga. Muhiim iibso markuu qiimaha suuqa saaran yahay sagxadda, iska iibi markuu qiimaha soo gaaro saqafka. Sagxadda iyo saqafku waa mabda ugu fudud ee falanqaynta farsamada qiimaha suuqa. Ereyga sagxad ayaa waxaa loo isticmaalaa support, waxaa la siiyaa qiimo kasta oo caddeeyo inuu suuqa taageerayo waqtiyadii lasoo dhaafay. Sidoo kale ereyga saqaf ama resistance ayaa loo bixiyaa qiimo kasta oo xaqiijiyay in ay qiimaha suuqa celiyaan waqtiyadii hore ama waqtiyadii lasoo dhaafay. Markaad sawiraysid sagxadaha iyo saqafka suuqa, khadad ama xariiqo toosan baa isticmaali kartaa. Marka xariiqimo toosan baa isticmaali kartaa ama horizontal lines, iyo khadad ama xariiqo qalloocan ama trend lines baa la isticmaali karaa. Marka labadaba waa loo isticmaali karaa. Sawirka u gudubno. Sawirkan waa sawir sagxadda suuqa. Saa u jeedaan suuqa meeshaan hoose mar walbo imaado kor buu u laabanaya, mar walbo imaado kor u laabanaya. Marka meeshii suuqa taageerto, qiimaha suuqa taageerto, waxaa loo yaqaanaa sagxad ama support level. Sawirkan kalena waxaa ku arkaysaa waa saqafka suuqa. Waa mar walbo suuqa inta imaado hoos u dhacaya, mar walbo imaado hoos u dhacaya. Marka saqafka waa meel suuqa markuu soo gaaro hoos u celinayso, suuqa ma jabsan karo, hoos u laabanaya, hoos u laabanaya. Marka meeshaan waa saqaf. Waxaa kaloo rabaa inaan ku daro videogan aan sawiro ku darin. Saqafka ayaa wuxuu isku bedeli karaa sagxad. Marka saqafka haddii la jabiyo uu suuqa dib ugu soo laabto, maxay noo noqonaysaa? Sagxad bay noo noqonaysaa. Marka waa levello dad badan ay fiirsanayaan, qiimaha suuqa uu ka kala wareegayo. waa qiimeyaal fiican ee suuqa laga iibsan karo ama laga iibin karo. Jiheeye sare. Marka trend lines ama sida idin sheegayay xariiqmo qalloocan waa la isticmaali karaa. Marka jiheeye sare uptrends iyo jiheeye hoose. Markuu suuqa isbedelayo, ganacsadaha wuxuu adeegsan karaa jiheeye sare iyo jiheeye hoose khadadka isbedelka, iyadoo lala kaashanayo sagxado khad toosan iyo saqafyo khadad toosan. Markuu suuqa isbedelo sare ama uptrend sameynaya ama bullish market ku jiro, xariiqamo qalloocan ayaa lagu sawiran karaa hoos u dhacida ama swing lows qiimaha suuqa. Marka hoos u dhacidu waa maxay? Waa sida la socotaan waa meeshaan markuu suuqa hoos u dhac sameynayo, meeshaan camal waxay noqon kartaa level fiican oo ah sagxad fiican. Trend line-kana waa lagu sawiran karaa. Marka insha Allah waa videoga labada ku sii sharixi doonaa oo idinku tusinayna. Marka inta trading view furno qiimayaasha sida loo sawirto sagxada fiican iyo saqafyo fiican sida loo helo. Sidoo kale markuu suuqa isbedelo hoos u dhac sameynaya ama uu ku jiro bearish market ama downtrend, xariiqamo qalloocan ayaa lagu sawiran karaa kor u kaca swing highs qiimaha suuqa. Kor u kacana waa kana. Markuu suuqa hoos u dhacayo, meeshaan waxay noqonaysaa muxuu ahaa saqaf fiican ay noqonaysaa. Muxuu ahaa trend line-kana waa u isticmaali kartaa jiheeyaha, waa ku kor sawiran kartaa kan iyo swing kale baa muxuu ahaa ku sawiran kartaa korkooda. Marka meelahan ayaa badanaa calaamad u ah meelo suuqa laga galo oo laga faa'iideysan karo. Marka waa meelayaal fiican ee suuqa laga faa'iideysan karo. Saa hore idinkugu sheegay jiheeye sare waa kana suuqa waa suuq uptrend ku jiro. Waa kana mar walbo meeshan kusoo laabto suuqa kor u laabanaya, kor uga laabanaya, kor u ka aadaya. Marka tan waa supportive uptrend, waa trend line, waa jiheeye taageerayo qiimaha suuqa. Tanna waa suuq downtrend ku jiro. Muxuu ahaa waa resistive downtrend. Marka jiheeyahan ayaa suuqa mar walbo suuqa qiimaha xaggan soo gaaro, suuqa hoos u laabanaya, hoos u laabanaya. Waa downtrend, waa trend line. Marka waxaa jiro xeerar markii aad sawiraysay xariiqamaha la raaco. Waxaana jiro 3 xeero aad iyo aad muhiim u ah. Xeerka koobaad, ku jiid xariiqintaada qiimaha shumacyada ama baararka meesha ay ka furmaan ama ay ka xirmaan. Taas waa muhiim. Xeerka labaadna waxa waaye xariiq ayaa kaliya oo ansixiya markii 3 taabasho ama muxuu ahaa ka badan la helo. Markii 3 taabasho xariiqintaas ay haysato, markaas oo kaliya ayaa la dhihi karaa meeshaan waa meel fiican oo suuqa laga geli karo. Xeerka saddexaad, xariiqimaha
toosan ee sagxadda iyo saqafka marka horizontal lineska kuwa toosan ayaa ka muhiimsan xariiqimaha qalloocan. xariiqimaha qalloocan sida kuwan camal qofba si buu arki karaa. hadda saa ujeedaan kan waa suuq kor u socdo, laakiin dadka qaarkood intii ka bilaabanaya labada meel ku sawiran karaan, qaarkood inta marka qofba si buu u sawiran karaa. laakiin muxuu ahaa markii ay toosan yihiin sidan camal dadka badankood meel isku level bay ka arki karaan badankood. marka saddexdan waa saddex heer oo muhiim ah, heerarka muhiimka. marka waxaa jira qiimayaal muhiim ah oo loo yaqaano key supportive level ama key resistive levels. waa heerar uu qiimaha suuqa kasoo laabto mar walba uu meeshaas gaaro si fiican cabaar hoos uga soo dhaco. waa badanaa meelaha suuqa ugu sareyso iyo ugu hooseyso markii aad ka fiirinaysid maalinlaha ama isbuuclaha aad isticmaalaysid. markii aad isticmaalaysid shaxda maalinlaha iyo isbuuclaha, meelayaasha ugu sareysa iyo meelayaasha ugu horeysa waa heerar muhiima. qiimaha suuqa markuu meelaha soo gaaro badanaa suuqa jihadiisa wuu bedeli doona, uu bedelaa korboona usii laabtaa. marka waa heerar muhiima, waa waxa loo yaqaano key resistive and key supportive levels. insha allah videogan ugu horreeya intaasa kusoo gabaynaa. videoga labaad ayaa idinsinaa si loo sawiro sagxadaha iyo saqafka, sida loo helo trend lineska, iyo weliba waxaan raadin doonaa buurahan iyo dooxadahan ama swing highs iyo swing lows. marka insha allah waxaan rajeynaa inaad videogan ka faa'iidaysateen. waa inuu videoga labaad